dadka degmada Xudun oo kaashanaya isuduwaha wasaaradda deegaanka oo gacan ka helaya ciidamada saldhigga 8aad ayaa howlgal ka sameeyay deegaano hoos yimaada degmada Xudun. howlgalladaasi oo lagula dagaalamayo laguna joojinayo jarista dhirta kadibna dhuxusha laga dhigo. howlgalladaasi ayaa laga sameeyay degmada Xudun iyo deegaano hoos yimaada halkaas oo kooxood deegaanka dhibaato ku haya ay ka howlgali jireen. howlgal muddo 7 socday ayaa halkaasi laga fuliyay. jaamac xaaji maxamuud saalax isuduwaha wasaaradda deegaanka waxa uu sheegay in baaqeela dhaana ay uga yimaadeen odayaasha deegaanka kadibna wasaaraddu deegaankaasi ku baxday kuwaas oo gacan ka helaya ciidamada saldhigga ama ololaha dhuxul joojinta iyo la dagaalanka xaalufka oo aanu ka wadnay degmada Xudun labadii toddobaad ee la soo dhaafay anagoo kaashanayna ciidamada militariga saldhigga 8aad iyo odayaasha deegaanka iyo tiimka iyaga wasaaradda anagoo isku duuban waxaanu bilownay howlgal aanu ku joojinayno ama kaga hortagayno dadka deegaanka lagu siliday ama deegaanka dhibaatada ku haya ee gubaya kuwaas oo hadda bilaabay awal soonaan Xudun iyo deegaanka soolba dhuxusha way ka ladnayd inta badan dhuxusha way ka ladnayd lagama shidi jirin dhibaatooyin kala duwan way ka jireen laakiin dhuxushu waxa ugu yar ee ka jira bay ahayd hadda waxa la bilaabay awal hadda weydeen in la shido galoolka iyo quraca ay dhirta in la shido waxa la bilaabay geedka loo yaqaan hareeriga oo dhibaato aad u weyn lagu hayo geedkaasi waxa weeye wuxuu ku jiraa dhirta ugu faa'iidada badan ee ka baxda buurahan Xudun iyo hareerahooda waxa weeye waa dhirta ugu fiican ee xooluhu ay manfaacadsadaan caleenta ka dhacda geedka kaliya ayaa dhammaan xoolahooda ku filan waa geed doog iyo jilaalba la manfaacadsan karo waa dhirta deegaanka bilicda waa dhirta ugu dhaadheer bilicda soo celinaysa quruxda waxa weeye arintaas howlgal ballaaran baan ka sameeynay waxaanu gubnay ilaa 30 goobood oo dhuxushii lagu diyaariyay ama dhirtii qoyan oo googo'an oo markaa loogu talagalay in dabka la saaro aan ugu tagnay qaar iyagoo baxayaan ugu tagnay qaar iyagoo bacihii ku jira ayaan u tagnay dhammaan waanu ka gubnay waxa weeye waxyaalaha aan loo suuro galin waxa kamid ah dhulku dhul buuralaya marka yarkaan nimankani waa niman dambiilayaal marka yarkaan ciidanka iyo wasaaradii iyo tiimkii oo isku duuban marka yarkaan soo socda waxay dhulku dhul buurahay galayaan waxa weeye waa niman shuftaa oo og inay dambiilayaal yihiin odayaasha deegaanka waxaan isla garanay nimankaas inay dambiilayaal yihiin sharcigana la hor keeno wasaaradana sharci baa uga yaala Soomaaliland sharci baa uga yaala nimanka in sharciga la hor keeno maalmaha kamid ah ay sharciga hor iman doonaan iyagoo dagan baan la heli doonaa odayaashuna way saxeexeen ilaa iyo waxay odayaashu gaarsiiyeen in xitaa hadii la laayo oo ciidankaasi ay laayaan nimanka aan wax allaale cid loo raacaya aan jirin oo siday nimankaasi dambiilayaal ku yihiin waana waxyaalaha dhibaatada inoogu wacan dadka noocaasa dhibaatadaas waxa qayb ka ah dad ganacsata oo iyagu maalgeliya dhalinyarada reer miyiga iyo dadka tuulooyinka jooga dad maalgeliya oo yiraahda anaga idiga iibsanayne idinku soo shida oo waxa weeye halkan guriga ka dhistay oo ganacsiyo weyn ku leh dadkaas deegaanka dhibaatada lagu hayo qayb weyn ka ah dadkaas kharashka u dira dadkaas raashika u dira dadkaas qaadka u dira waxa weeye wax allaale wax iyagu ka faa'iidaan ma jirto waa dad cagacad waa dad arkadan waa dad aad u diifaysan waxa weeye waxa ku faa'iiday dadka ganacsatada baa ku faa'iiday dadka maalgelinaya ku faa'iiday waxa weeye kuwa waxaan kula talin lahayn haddaad in badan ku soo jirtaan arrimaha noocaas oo dhibaato badan deegaanka u geysateen oo idinku afududeynaysan hadii aanu ogeyn wiilka reer miyiga ah in cidi ka iibsanayso adeerday mooshideemba yaa laakiin qofka arinta fududeynaya ay way sugtahay waa ninka ganacsadaha ninka gaariga leh ninka ka ganacsanaya baash marka waxaan kugu talinaynaa war wax kale oo laga shaqeystaa jiree at least hadda de kaba faa'iide de beeray wax sameeyso ka faa'iide iyagana waxaan oranaynaa war intaad muruqiina maalaysan dabad ku jirtaan hawshan aad ku jirtaan hawlka adag ma jirto waxa idinka hawl yar in aad markaad ugu yaraataan siidhka intaad qaadataan xilliga roobka soo dhow yahay dhulka banaanada ayaan dooxooyinka ahayn siidhkiina inta ku ridataan roobka la sutaan markuu idin baxo aad iib geysataan kuwaas aakhiriya adduunba manfaacad ku helaysaan waayo qofkii geed beeraana xagga Ilaahay buu ka helayaa wanaagiisa kii geed gubaana dhibaatada xagga Ilaahay buu ka helayaa bulshada reer Sool kula talinayo waxa kamid ah waxaad ogtiin waxa soo socda maalintii dhirta 15 April maalmahan soo socda waxaanu qaybin doonaa dhirtii wasaaradda deegaanka waxaan kula talinayaa inta badan dadku dhirta way dayacaan waxa weeye deegaanka Sool wuxuu kamid yahay meelaha ugu dhirta yar wasaaraddu dhirta way keentaa dadkuna way beeraan inta badan way ka qalalaan waxaan u sheegaynaa kulay farsamo xumooyin baa jiro dad haday doonaan qaarkood baa sidii ku xiran qaarkood god kama dheereeyaan waxaan
u sheegaynaa iminka sanadkan oo qorshe hore u bedelay qofkii godkana qota siligana keensada ciidda beerahana keensada baanu geedka siinaynaa qof kale oo aanu siinaynaa ma jirto shirkadaha dhismaha ee qandaraasyada qaatana waxaan kula talinayaa dadkan aad ka qaadanaysaan qandaraaska ee guryaha u dhisaysaan war qorshaha waxaa ku darsataan oo haddaad doontaan qarashka ugu dartaan markuu ugu yaraado guriga furaha markaad wareejinaysaan 2 geed waa inay ku beerantaa dowladda hoosena waxaan kula talinayaa gurigii aan geed ku beernayn cashuurta ku kordhiya oo waxa weeye